baraha bulshada Kenya ayaa lagu hadal hayaa furiinka gabar Soomaali ah iyo wiil caan ka ah dalka Kenya oo ah wariye ka howlgala mid ka mid ah warbaahinta maxalliga ah oo arooskooda u dhacay 2 sano ka hor. Ben Kitili oo haysta diinta Masiixiga iyo Amina Mudee oo ah Muslim Soomaali ah ayaa arooskooda marka uu dhacayay waxa uu qabsaday baraha bulshada iyadoo dad badan ay taageero u muujiyeen halka kuwa badanna ay ku gacan seereen. Inta badan waxay noloshooda ku soo bandhigi jireen baraha bulshada halkaas oo ay ku haysteen taageero aad u ballaaran. Balse warbaahinta Kenya waxa ay qoraysaa in labadan lamaane ay kala tageen iyagoo soo xiganaya barta Instagram-ka ay ku leedahay Amina Mudee. Aniga iyo Ben waan kala tagnay. Mustaqbalka wax xigi doona ma ogi, laakiin waxaan ku faraxsanahay waqtigii quruxda badnaa ee aan wada qaadanay iyo ilmaha quruxda badan ee aan isku dhalnay. Amina ayaa sheegtay in ay muddo bil ka hor kala tageen Ben, balse ay go'aansatay in ay hadda shaaciso. Waxay ahayd hal bil oo xanuun badan oo ilmadu ay iga daadanaysay, balse waxaan ogahay in maalin aan iftiinka heli doono ay ku qortay barteeda Instagram-ka. hase yeeshee Ben ayaa weli ka hadlin arrintan baraha bulshada qabsatay. Bishii November ee sanadkii 2018 Soomaalida Kenya ayaa aad uga hadashay guurka dhex maray wariyahan u shaqeeya TV-ga dalka Kenya ku yaal ee KTN iyo Amina. Sanadihii la soo dhaafay Soomaalida waxaa la sheegaa in ay si tartiib ah u dhaxgalayeen mujtamacyada ama bulshada kale. Guurka Ben iyo Amina Soomaali badan ayaa tilmaamay in uu lid ku ahaa dhaqanka iyo diinta Islaamka. Baraha bulshada ayaa aad loogaga sheekaysanayay guurka wariye Ben Kitili iyo Amina Mudee oo aqal galay kadib markii ay muddo saaxiibo ahaayeen, 2 canugna ay isu dhaleen. Waxay ku aqal galeen xaflad ay dad yar oo saaxiibadooda ka mid ah iyo xubnaha qoyska ay ka soo qayb galeen. Mar ay Amina ka jawaabaysay dareenka ah inaysan sax ahayn inay nin Masiixi ah guursato iyadoo Muslim ah ayaa waxa ay tiri, waxba kama soo qaadin arrintaas. Waxa muhiim ah ayaa ah in Ben uu yahay nin wacan, taas ayaana i qancisay. Amina ayaa barteeda Instagram-ka ku qortay in wax walba ay hagaagi doonaan oo dhibka ka bixi doonto, sidoo kalena ay doonaysay in dadka ku xiran barteeda ay xaaladda la socodsiiso inta aysan warbaahinta soo qorin.